saacadu markay ahayd 5:50 ee subaxnimo ee maanta ayaa waxaa dab xooggan uu ka kacay xarunta shirkadda ganacsiga guud ee Badar ay ku leedahay degmada Gurceel. Dabkan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay oo burburiyay qaybta kaalinka shidaalka, macmacaanka iyo sidoo kale qayb ka mid ah qaayada cunnada. waxaana dabkan uu saameyn sidoo kale ku yeeshay xarunta shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud inkastoo uusan khasaaro weyn gaarsiin. Waa xilli hore in wax laga ogaado khasaaraha uu dabkan dhaliyay, balse waxaa la hubaa in hanti aan yarayn ay halkan ku baxday. dabka oo socday muddo 4 saacadood ah ayaa waxaa in uu waqtiga gaaro saameyn ku lahaay foostooyin shidaal ka buuxay ayaa dabka mar walbaba sii hornayay, waxaana mar walbaba qarax sameynaya foosto cirka ay uur isku shareereysay. waxaana dadweyne ka kala yimid xaafadaha degmada Gurceel ay isku dayeen sidii ay dabka ku damin lahaayeen, balse xaaladdu way ku adkayd waayo dadku waxa ay haysteen oo kaliya badeel ay carro ku qaadaan iyo booyada kuwa biyaha lagu dhaamiyo ah oo ay u isticmaalayeen dabdaminta. waxaa kaloo jiray cabsi ah in foostooyinka oo qarax sameynaya aan dabka loo dhawaan karin. ganacsatada qaarna waxay bilaabeen inay ganacsigooda kala baxaan xarumaha ganacsi ee ku dhow shirkadda ganacsiga guud ee Badar qudheedu qaybta jumlada oo u badbaaday waxa ay bilaabeen in ay ka saaraan wixii badeeca ku jiray. badanaa dadku waxa ay goobta u joogeen daawasho waayo ma ahayn tabartooda in ay wax ka qabtaan dabkan awoodda leh. waxaa jira dhaawacyo fudud oo soo gaaray dadkii goobta isugu yimid, kuwaas oo ka dhashay isbuurasho mararka qaar dhacaysa marka foosta qarax samayso iyo gaadiidka gurmadka sameynayay oo isdaba mareynayay. guryaha ku hareeraysan goobta uu dabku ka kacay ayaa mararka qaar waxa gaaray foostooyin qarax sameeyay, waxaana taasi ay dadku ku abuurtay walwal. qaarkood ayaa bilaabay inay isaga barakacaan guryahooda. dabkan waxa uu socday ku dhawaad 4 saacadood, ugu dambeynna dadweynihii isku yimid waxa ay ku guuleysteen damintiisa. qaar ka mid ah dadweynihii aan goobta kula kulmay iyo shaqaalaha shirkadda Badar waxa ay sheegeen in dabkan loo maleynayo inuu ka kacay koronto,